mucaaradka Soomaaliya ayaa soo jeediyay in la bedelo 67 xubnood oo kamid ah gudiyada magacaaban ee doorashooyinka. xubnaha ay soo qoreen oo loo gudbiyay ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ku jira gudiyada heer maamul goboleed iyo midka heer federaal. guddiga xalinta khilaafaadka ayay sidoo kale ku jiraan dadka la farmuuqay. eedaha dadka qaar ay mucaaradku u soo jeediyeen waa kuwa daciif ah. sida uu inoo xaqiijiyay xubin ka mid ah xafiiska ra'iisul wasaaraha, dadka qaar ayaa lagu soo eedeeyay inay saaxiib dhow la yihiin taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daa'ir, taas oo aad xadgudub ugu ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xaqa u leh inay dalkooda u shaqeeyaan iyagoo la saaxiiba ciddii ay doonaan. waxaa kaloo cajiib ah in ragga eedaasi soo jeedinaya qaarkood inay ku jiraan kuwa iyaguba saaxiib dhow la ah ninka saaxiibtinimadiisa dartii loo ciqaabayo xubnaha gudiyada. Jubbaland waxay xal shaacisay liis laga dhex arkay 5 xubnood oo uu Axmed Madoobe u adeegsaday labadiisii doorasho ee ugu dambeysay. xubno reer Jubbaland ayaa ku eedeeyay Axmed Madoobe inuu soo saaray liis ka halis badan midkii uu ka cabanayay muddooyinkii la soo dhaafay. uma badna inay mucaaradku dib u arkaan guddigii uu xalay soo magacaabay Axmed Madoobe, laakiin dhinaca dowladda federaalka ayaan la ogeyn inay aqbali doonto in kale. intaan xalay la shaacin liiska xubnaha Jubbaland waxaa miiska saarnaa oo magacawnaa 92 xubnood. Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, reer Waqooyiga iyo Banaadiriga ayaa dhammaan xilli hore gudbiyey gudiyadooda heerka hoose iyo xubnaha ku matalaya labada guddi ee heer federaal. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaana sidaas ku shaacisay guddiga maamuli doona doorashada heer federaal iyo midka xalinta khilaafaadka. xubnahan oo guud ahaan 92 xubnood ahaa ayay mucaaradku soo calaamadeeyeen 67 xubnood oo ka mid ah. waxay ahayd tiro aad loola fajacay. eedaha dadka qaarna waxay u muuqdeen kuwa boos loo waayay. qof dhintay ayay sidoo kale mucaaradku ku soo dareen liiskooda eedaynta, taasoo muujisay inaanay waxba soo baarin. haddaba ma laga aqbali doonaa mucaaradka in la bedelo tiro intaas dhan? waa liis aad u dheer. uma badna in dhammaan xubnahaasi ay farmaajo wada cabsan yihiin. ra'iisul wasaare Roble ayay hadda hawsha agtiisa taal. waa macquul inuu raaco soo jeedinta mucaaradka. waxaase kaloo u furan inuu kala shaandheeyo oo uu kuwa eedaha saxda loo haysta bedelo inta kalena dhaafo. maadaama ra'iisul wasaare Roble laga rabo inuu qabto doorasho aan buuq lahayn, waa inuu dhinacyada u wada garsooraa. isagu hadda wuxuu isku qeexaa inuu dhexdhexaad yahay, sidaa darteed kuma qasbana inay dhexdhexaadnimadiisu hal dhinac qanciso. isbeddel lagu sameeyo gudiyada ma ku faa'iidi karaan mucaaradku? shaki kuma jiro in arrinta gudiyada ay ka wada shaqeeyeen Villa Soomaaliya, NISA iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. waxaase jira tuhun ah in xubnahan aan markii horeba loogu talagelin inay gudbaan. waxaa jira walaac ku saabsan gudiyada imaan doona. hoggaanka Villa Soomaaliya waxaa lagu xamanayaa in xubnihii saxda ahaa ay gadaal dhigteen oo ay sugayeen maalintan oo kale. inay yimaadaan xubno kuwan ka xag jirsan oo si weyn u cabsan hoggaanka farmaajo ayaa ah walaaca ugu weyn ee maanta. mucaaradku ma haystaan fursad labaad oo ay ku dalban karaan in gudiyada mar kale la bedelo. sidaa darteed uma badna inay ku faa'iidi karaan isbeddelka gudiyada iyo liiska ay gudbiyeen. maxay kula taadiga?